kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkan waa channelkan YouTube-ka xulashada wararka maanta oo axadana 8 Maarso 2020 qodobada wararka ugu waaweyn waxa kamid ah Villa Soomaaliya oo amartay in Muqdisho la keeno wasiir ka tirsan Jubbaland oo isku soo dhiibay ciidanka dawladda ee ku sugan Gado xog culus oo ku saabsan ciidamada haram cad ah iyo gorgor oo ku wajahan Kismaayo iyo go'aanka Villa Soomaaliya Axmed Madoobe Qusaya xog culus oo ku saabsan madaxweynaha Jubbaland oo shaaciyay laba dawladood oo ku lugta leh burburka maamulkiisa ee dagaalka lagu jiro wuxuu Cabdiqaasim Salaad Xasan ka yiri xiisada ka jirta gobolkaas Gado ciidamada lagu daabulayo farsamayaqaan al-shabaab xagga qarxid u qaabilsanaa maxkamadda militariga xukun ku riday wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo duqeyn lagu laayay shabaab oo Mareykanku ka fuliyay Soomaaliya qodobadaas kuba kale ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta saaxiibayaal aad ku daawado doontaan channelkan YouTube-ka xulashada wararka Duyle Raali ka noqdo waxaase intaan gudagelinsa waxaan ku xasuusinayaa daawade inaad subscribe inoo tiraado channelkana gambalelkaasna taabato si ay kugu soo dhacaan muuqaalada waliba warbixinada xiisaha badan halkan aan ku baahino aan ka hormaraysa warbixinta ugu horeysa Villa Soomaaliya waxay amartay in Muqdisho la keeno wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland kaas isku soo dhibay ciidanka dawladda ee ku sugan gobolkaas Gado warar hoose naga soo gaaraya gobolkaas Gado waxa ay sheegayaan in diyaarad military oo Muqdisho ka baxday loo diray Gado si ay u soo qaado wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulkaas Jubbaland oo shalay isku dhibay ciidanka dawladda Soomaaliya ku sugan gobolkaas Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ku magac dheeraa awar ayaa maalmihii dambe waxa ku sugnaa magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya halkaas oo xiisad u dhaxaysa ciidanka dawladda iyo kuwa Jubbaland bay ka jirtay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyn garwaaqsaday xaaladdan culus inuu soo ku sii jiri karin taas oo keentay inuu isku dhiibo ciidanka dawladda lama oga sababta Muqdisho loo keenay Masar Caarwa balse warar aan xaqiijinaya sheegaya in dawladda Soomaaliya ay dalbatay in la keeno Muqdisho si baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo wasiirka iyo sababaha qasabtay inuu soo dhiibo wararku waxay inta ku darayeen in Cabdiraxmaan uu soo maray safar uu asaga kala gudbayo safar uu dalalka Kenya iyo waliba Ethiopia iyo Soomaaliya Suudaanta ay wadaagaan lama faahfaahin sababta oo keentay inuu ka soo baxo Jubbaland wasiir kale oo intaas oo safar uu soo maray deetano ku soo biiro ciidanka dawladda isku soo dhiibo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulkaas Jubbaland ayaa markii uu tagay magaalada Mandheera ka gudbay dhanka Ethiopia isagoo u sii galay halkaas iyo degmada Doolo oo ugu dambeyn ciidanka dawladda isku soo dhiibay kulamo gaargaar ah oo xalay magaaladaasi Doolo uu kula qaatay saraakiisha odayaasha dhaqanka dawladda ee magaalada ka soconaya ayaa waxa la sheegay in lagu qanciyay in wasiirka halkaas ka joogo sidoo kale la sheegay in loo qali doono magaalada Muqdisho Mandheera dhawaan waxa halkaas tagay saraakiil badan ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland waxaana Mandheera ku sugan sidoo kale wasiirka amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo halkaas ka wada abaabul dagaal wasiirkan oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa tani waxay u noqonaysaa darbaxsho kala weyn maamulka Jubbaland marka loo eego wasiirkan isku soo dhiibay gacanta dawladda qodobada kale daawadayaal wararka ku jira waxa qayb ka ah ciidamada haram cad iyo waliba kuwa gorgor ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo xogta ku saabsan Villa Soomaaliya soo qabashada Axmed Madoobe aan eegina ciidamada haram cad iyo kuwa loo yaqaan gorgor ee dawladda Soomaaliya ay leedahay ayaa magaalada Beled Xaawe hadda qorsheynaya inay kaga sii gudbaan deegaano dhowr ah oo magaalada Kismaayo qayb ka ah sida ila xogaal ay noo sheegeen ciidamadan haram cad iyo kuwa gorgor iyo dawladda federaalka Soomaaliya ku daabushay degmada Beled Xaawe gobolkaas Gado halkaas oo dhaqaaqay military ka wadaan saddexda cisho ugu dambeeyay saddex diyaaradood oo ciidamo sida ayaa ka degay Beled Xaawe si halkaas ay gacan military ugu dhigaan deegaanada kale ee dawladdu qorsheynayso madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu amray in qalqal la geliyo amniga magaalada Kismaayo si ay u bataan culays sida uu kordho culayska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo kala kulmaya dhinacyada kala duwan ee Jubbaland ku loolamaya saraakiisha hogaaminaysa ciidankan ee ku sugan gobolkaas Gado ayaa hadda isku diyaarinaya in amarkaas ay fuliyaan isla markaana ay u dhaqaaqaan dhanka Kismaayo oo maamulka Jubbaland xoog badan aan ku hayn ma sahlana inay cagta mariyaan ciidamada haram cad iyo kuwa gorgor ayna tagaan magaalada Kismaayo deegaanada kale ee ku hareereysay halkaas oo ciidamada daacad u madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay joogaan sidoo kale waxa ku sugan ciidamo badan oo Kenya kuwaas oo taageero buuxinaya Axmed Madoobe waxaas dadka falanqeeya arintan ay sheegay inay sahleen in ciidamadan ay tagaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose laakiin dagaal badan uu ka xigo
haddaba daawadayaal dhanka kale Axmed Madoobe waxa uu shaacu ka qaaday laba dowladood oo ku lugta leh burburinta maamulkiisa eedan culus ayuu u jeediyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga iyo Qatarba inay joojiyaan taageerada ay siinayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo lagu burburinayo maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay Turkiga ha joojiyaan tababarka ciidanka taariikhda xun baalka idin gashay oo idinka raacaysa ma ahan ciidamo qaranka loo isticmaalayo ayuu yiri Axmed Madoobe waa ciidamo qaabeela loo isticmaalayo lagu burburinayo Axmed Madoobe oo mar shalay ka hor hadlay baarlamaanka iyo hadalkan jeediyay Axmed Madoobe ayaa si cad u dhaliilay hanaanka loo marayo tababarka ciidanka Turkiga oo siiyay ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Haram Cad iyo Goorgor oo hadda ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi Galmudug kuwaas oo dagaal kula jira maamulkiisa Jubbaland waxa uu sheegay nasiib darro ay tahay in xilligan lagu soo daabulo deegaano nabad ah ciidamo hubeysan oo al-shabaabkiina aan la dagaalamin ayuu yiri balse waxa uu ugu baaqayna wadamada ka taageeraya Soomaaliya inay joojiyaan madaxweynaha Jubbaland ayaa luqad adag kula hadlay madaxweyne Farmaajo wuxuuna sheegay in marna aysan aqbali doonin cadaadiska cagajugleynta iyo waliba awoodda military ee maamulkiisa loo adeegsanayo asagoo sheegay in wax walba ay ahaatana ay dhankooda iska difaaci doonaan haddaba daawadayaal sheekooyinka Gado iyo Jubbada Hoose wali kama dhamaaneen muxuu Cabdiqaasim Salaad Xasan ka yiri xiisada ka jirta Gado iyo ciidanka halkaasi lagu daabulaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xiisada ka taagan gobolkaasi Gado inuu dhaxaysa dowladda Soomaaliya Jubbaland Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu sheegay in badi dagaalada ka socda gobolada dalka ay kuba sokeeyay isla markaana xilligan aan loo baahnayn in dagaalo Soomaali dhexdeeda uu dhaxmaro waxa uu tilmaamay in ay ahayd in xilligan ay isgarabsadaan laakiin waxa uu sheegay in qaab qabiil loo dagaalamo ay tahay wax Soomaaliya ka gudubtay dagaalka ka soconaya gobolada dalka badi waxay u muuqdaan kuba sokeeyo walaalo ay isdilayaan hal laga fogaado in la isdilo ayuu yiri gobolkaasi Gado waxa ku dagaalamaya waa maleeshiya beeleed waa qaab dagaal beeleedya ayuu yiri Cabdiqaasim asagoo ku sugan magaalada Qaahira ee wadankaasi Masar sidoo kale waxa uu baaq u diray dowladda federaalka asagoo u sheegay in laga doonayo in meelaha ay ka aloolisan yihiin ama xiisadaha ka jiraan in qaab wada hadal ah iyo heshiis ay ku dhabeeyaan dowladda waxa loogu baaqayaa in wixii dagaal ay ku raadiso qaab nabad ah khilaafkana la xalliyo lana dhameeyo ayuu yiri Cabdiqaasim dhawaan ayay ahayd markii ciidamada militariga dowladda iyo kuwa Jubbaland bay ku dagaalameen qaybo ka mid ah degmada Beled Xabe walina xiisad ayaa laga dareemayaa degmadaas xiisadaas u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo waliba kuba kale ee ku sugan Beled Xabe waxaana mar walba dadka halkaas ku sugan ay sheegayaan inay ka cabsi qabaan in mar kale ciidamadan ay dagaalamaan baaqida loo jeedinay dhinacyada dagaalamaya ayaa ah kuwa aad u xoogan marka loo eego cabsida ka jirta gobolkaasi Gado ee dagaalada la xiriira wararka Gado iyo waliba Jubbada Hoose iyo shaqooyinkii la xiriira halkaas ayaan kaga gudbinaa maxkamadda militariga waxay maanta xukun ku riday farsamayaqaan al-shabaab u qaabilsan dhanka qaraxyada maxkamadda darajada koobaad ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya maanta axada waxay xukun ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab kaas oo maxkamaddu ay xukunkiisa maanta shaacisay Muuse Maxamed Axmed ayaa loo haystay inuu ka mid ahaa ururka al-shabaab ahaana farsamayaqaan agabka qaraxyada sida bambooyinka F1 sidoo kale waxa lagu sheegay qoraalka maxkamadda in waxyaabo badan kiis ah loo haysto ciidamada militariga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa Muuse waxay ka soo qabteen magaalada Markaa bilowgii bishii November 2019 isagoo markaasi janaale ka soo galay xilligan la sheegay inuu ku howlaa farsameynta bambooyinka nooca gacanta FM la yiraahdo ee lagu tuuro dadka ama askarta ciidanka inta kadib waxaa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho shakhsigan Muuse ciidamada maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaana lagu wareejiyay gaar ahaan booliiska kadibna CID-da markaa laga soo laadana xukunka maxkamadda maanta ay shaacisay baaritaan dheer kadib ayaa xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in ninkan Muuse Axmed Maxamed oo qirtay dambigiisina ay ku cadaatay 15 bishii February sanadkan ayuu codsaday xiraalinta in loo mudeeyo kiiska ka dhanka ah Muuse Axmed waxaana ugu dambeyn maxkamaddu maanta oo maanta ay u fadhiisatay soo gabagabeynta gal dacwadeedka Muuse oo 14 bishii February sanadkan kiiskiisa bilaabatay fursado badan iyo doodo la xiriira arintan xiraalinta soo bandhigeen cadeemo ah ay ugu dambeyn maxkamaddu go'aan gaartay ugu dambeyn go'aanka maxkamadda wuxuu noqday in
muuse axmed maxamed lagu xukumo 10 sano xabsi ciidan ah kadib markii dhammaanba dambiyada loo haystay oo ahaa inuu qirtay farsamayaqaan sameeya qaraxyada iyo waliba eeda kale la xiriira wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa dagaalo ka dhacay shabeellaha dhexe iyo hooseba warar dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe gaaraan deegaanka liira ceel geelo oo kamid ah deegaano hoostaga balcad oo shabeellaha dhexe ka tirsan ee ku dhexmar ciidanka dowladda iyo waliba kuwa ururka al-shabaab xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaa la sheegay in kolonyo ka tirsan ciidanka Burundi oo kamid ah AMISOM ay weerar jidgal ay ku qaadeen xilli ay marayeen deegaanka liira ceel galoy oo u dhow tuulada qalimow ee degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal khasaare sababay dhanka kale xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla xalay waxa weerar ku qaadan fariisan ciidanka militariga dowladdu ay ku leeyeen deegaanka liira raaxole oo isna ku yaala ama u dhaxeeya degmooyinka balcad iyo tuulada qalimow shabeellaha dhexe goobjoogayaal waxa ay sheegeen in dagaaladaasi ay hayeen kuwa xalay dhacay khasaare badan ay sabab geysteen warbixintana ugu dambeysana duqeyn ayaa lagu leeyahay dagaalyahano kamid ah ururka al-shabaab ee Soomaaliya ka howlgala war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika Africom yiraahdo waxa lagu faafayay duqeyn dhanka cirka ah oo Mareykanku ka fuliyay deegaano kamid ah shabeellaha hoose qoraalka Africom waxa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay taariikhdu ku beegneed 7 bisha 3 2020 ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka la yiraahdo Kunya Garas oo shabeellaha hoose ka tirsan isla markaana la beegsadeen xubno muhiim ah ururka al-shabaab ka tirsan warku wuxuu intaa ku dariyaa Mareykanka waxa uu sheegay in ay dileen 4 xubnood oo kamid ah al-shabaab sidoo kalena nolosha lagu qabto ciidamada Soomaaliya ay qabteen xubno kale oo shabaab sida uu sheegay ku-xigeenka Mareykanka ee howlgalka Afrika ee qaradan General Jolis Mareykanka waxa uu si dhow ula shaqeynayaa howlgalka caalamiga ah ee Soomaaliya lagu ciribtiray kooxaha xagjirka ayaa lagu yiri sidoo kale wuxuu la shaqeynayaa AMISOM iyo waliba ciidamada Soomaaliya si loo soo afjaro kooxaha argagixisada ay ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya Mareykanka ayaa sanadka 2020 waxa uu kordhiyay weerarada dhanka cirka ah oo ka fulinaya Soomaaliya isla markaana waxa uu beegsaday xarumo badan al-shabaab iyo Daesh ee ku leeyihiin Soomaaliya kuwaas oo gobolada shabeellaha hoose Gedo iyo waliba Jubbada hoose iyo deegaanada buuraha ay shabaabku iyo Daesh diyaaradu ay ku bartilmaameedsadeen daawadayaal maanta waxaan warbixintan ayaa ugu dambeysay mid lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo